meel dhakhtaraan tegay anagoo jooga london ingiriiska magaalada caasimadooda. waxay la socday laba nin oo yani ducaadda ahoo khamiisyo xiranoo anigana khamiiskaygaan iska qabayoo wuxuu dareemay inaan muslimiin ahay. dhakhtarkii markaan u galay anigaa daawo u socday, xanuun badan ima hayno, xogay laf dhabarka meesha luquntaa yar xanuunaysay. marka dowladda qatar baa masaajid xagga 2 bilood soo tuuji tirayoo maadaama aan xaggeeda ka socdo waxaan isiri iska baaritaaniya wax iska sameeyo, iyagaa lacagta bixinaya, lacagtooda maba bixin karaba, waa dhakhtar qaali ah. muhim dhakhtarkii markaan u tagnay hor fadhiisannay ee la rabay inuu nabaaruhu ma garanaysa hawshayn dhex galo, wuxuu yidhi ma raalliga ahaada arrin aan la ii dirsanin oo aan shaqayna yaan ma idin weydiin karaa? haa. wuxuu yidhi aniga aad ii timaadeen inaan idin daaweeye, anigii baa buka, anaa jiran. waa nin dhallinyaro oo ingiriisa oo caddaan ah, weliba dadka madmadow baa taciisiinaa tiraan, caddaan indha bulbuluga le waaye. wuxuu yidhi tacbaan baan ahay oo anigii baa jiran, marka jiradeydana waa idiin sheegayaaye. wuxuu yidhi xusni iyo murugo masruur sacaada ma haysto, waxaan maalmahan ku fikiraa buu yidhi inaan isdilo. ma fahantay hadalkeyga? ninkaa dhakhtarka muxuu yidhi waxaan doonayaa in aan isdilo yaan ku fikiraa buu yidhi maalmahan. waa cidhiidriga aan dareensanahay buu yidhi qalbigayga. waxaanse ogahay buu yidhi in arrinta iyo meesha layga haystaa ay tahay xag ilaahay, caafimaadkaygana ilaahay unu hayo. wallaahi saasuu yidhi alladii laa ilaaha illaa hu. wuxuu yidhi ilaahay unu inuu caafin karo baan ogahay, laakiin mushkilada ay haysata waxaa weeye buu yidhi ilaahay calaa qalamalihi. oo markaan yaraana kiristan baa lanagu soo ababiyey, kiristaankana ma jeclaane buu yidhi. waxaan ku nacayna waxa weeye buu yidhi ilaahay aniga agtayda wax weyn buu ka yahay. markii la yidhi wiil anigoo kale uu dhalay oo musqul gelaya oo cunto, wallaahi wuxuu saasuu yidhi, wuxuu yidhi oo intuu cunto cuno oo musqul u baahanaya wiil saasuu dhalay markii la yidhi baan iska nacay, diintoodii oo dhanba nacay. saas darteed waan ka tegey kiristaankii, diin kalena ma gelin weli. marka maadaama aan ilaahay aan calaaqala lahayn oo waxa aniga ilaahay sukan keenaya diin tahay, waxaan ogahay meesha layga haysto inay xaggaa tahay. waxaan maqlay buu yidhi islaamku inay ilaahay war fiican ka sheegeen oo arrintaa aan ahayn. ma ii sheegi kartaan islaamku? bal ka warrama. waxaan idhaha waa kuu sheegayna. nimankii waxaa la yidhi adigu la hadal, annagaa u tarjamayne. arrinta haddaan idiin sheegayn ku bilaabay baan kala hadlay. waxaan idhi indhuhu waxbay ku raaxaystaan, dhaguhu waxbay ku raaxaystaan. weliba isagu wuxuu ka sheekeeyey inuu dhallinyaro yahay oo istimtaac ku jiro oo meelaha hablaha uu la boodboodo oo wax iga maqan ma jira buu yidhi. lacag fara badan baan qaataa, wax kastaan haystaa, meelihii la iigu sheego in lagu raaxaysta adduunka waan tagaa. raashiyaan ka imid buu yidhi, ruusiya ayaan ka imid buu yidhi. markii laigu yidhi gabdho qurqurux badan baa jooga, haddana meeshii un baan ku soo noqday, sidii un baan ahay, taciis baan ahay, qalbigaygu cidhiiri buu ku jiraa. marka waxaan idhi indhuhu waxbay ku raaxaystaan, dhaguhuna waxbay ku raaxaystaan. warkii hadda aan idiin akhriyey baan u akhriyey exactly buu yidhi, exactly. ingiriiska waa taqaanin kulligeedu, ahla hargeysa khusuusan. sax ma tahay doctore? exactly. si fiican ma ugu dhawaaqay? warkaa waa sax buu yidhi. jamaalna waaba joogaaba oo ninka qur-aanka idiin akhriyey britaniya ku dhashay, ingiriisku ku dhashay, halkaasuuna qur-aanka ku xifdiyey. haddaad leedihin qur-aanka lama xifdiyi karo, mar baan ka sheekayn doonaa sheekadiisa. almuhim waxaan idhi sidaas darteed baa qalbigaagii wuxuu ku raaxaysan lahaa baadan siinin. jirka inta kaloo dhanna isagaa xukuma. melikul acdaa waa qalbigii. qalbigii baa tiiraanyaysan oo tacbaan ah, qalbigaaguna ma degayo mana raaxaysanayo ilaad ilaahay xusto. ayadan anu akhriya aladiina aamanuu, ayadan anu akhriyay bitajwiid, aladiina aamanuu watatma'inu quluubuhum bidikri illaah, alaa bidikri illaahi tatma'inu alquluub. qalbigaaguna ma degayo mana raaxaysanayo ilaa ilaahay xusto.
ilaahay inaad xustood rabbigaa jeclaatana oo qalbigaaga allah rabbulcaalamiina uu ku weynaadana waa inaad islaam noqotaa. marka iska islaam haddaad daawo doonayso. wuxuu yidhi warkaagii waa iga degey, waana war sax ah, anaanaba diyaar u ahoo raadinaya, laakiin fadhigan madqura inaan iska islaamo soo kama ficna inaan wax soo baarbaaro oon maan muddo soo. wallahi waxaan aniga daawadan kugu imid haddaad hadda un ii dhammaynayso oo abaytmanti dambe iyo mawcid dambe iyo usan jirin, waa iska qaadan lahaa. hadda ma iska qaadatid? maya waan dadaalayaa buu yidhi, ii soo duce. markaan kasii tegaya wuxuu yidhi pray for me, pray for me. tamaam, yani salli min ajli, yani ii soo ducee. yani wuxuu dareensan yahay inuu duco u baahan yahay, wuxuu dareensan yahay meesha laga haysto. waa qalbi aan qur'aan ku jirin, waa qalbi suuratu alfaatixa aan aqoon, waa qalbi qul huwa allahu axad allahu samad aan haynin weeye. kayfa yartaax maca annahu inuu sheegtay nolosha adduunka wax ka maqan inaysan jirin.